asalaamu calaykum asxaabta youtube channelkayga ku xiran meel waliba oo aad dunida ka joogtaan soo dhawaada caawa waxaan idiin wadaa maho ya waxaan idiin wadaa walaalayaal horta dee qisooyinkii sida laygu soo diraayo anigana caajisooley aan noqday ya waxaan dhahayaa beriyaa duubay beri maahan saa dambe aad duubay saa dambe maahan maalinka ka dambe aad duubaysa maalin walba maalinan ku amaahana ya ma maqasheen qof markuu deen ku leeyahay dhahaya warniyaho maalinba maalina igu amaahanaysaa si lacagtayda camalno waa tahay intaa waa kaftanka ugu horeeya ee barnaamijka waa tahay waxaan idin hayaa horta qisooyinka gabdhaha waan idinka badiyey qisooyinka gabdhaha la xiriira aadan idinkugu soo taway because gabdhaha u hiilinaya laakiin caawa qisadaan idin haayo waa qiso ku saabsan dhanka iyo wiilasha dhankooda aadeena qisadan waxaa ii soo diray wiilka ay ku dhacday laftirkiisa waxa uuna iga soo diray magaalada Kampala ee wadanka Uganda ninkii yaqaana qisada way iska yara gaaban tahay laakiin ani laftirkaygu markii hore waxaan iri walaal man iska dayno marka wuxuu iga codsaday dhowr marna igu soo celiyay inaan sheekada ugu soo bandhiga dhanka iyo YouTube-kayga idinkuna aad tala ka soo siisaan marka si fiican u daawataan oo aad dhammaysataan bal talo wanaagsan wiilkaasi u dira dhanka iyo Kampala xaqiiqa u soo dirnaya xaqiisa okay ma santiin qisadan waxay ku bilaabanaysaa ama sheekadan wiilkan ii soo diray aan laftirkayga xoogaa murugo igu abuurtay mugtiin marka waxay ka bilaabanaysaa wuxuu yiri maalmaha kamida ayaan meel suuqa waxaan ku bartay yiri laba gabdhood oo gabari ay aad u qurux badan tahay gabarna ay dadkeeda ku dhex jirto markaan dhahaa yacni mana folxumo mana qurxoono waa dhexdhexaad gabadha marka wuxuu dhahay markaan bartuu yiri oo gabdhihii aan isbaranay suuq dhexdiisa aheedu dhahay meel wax lagu iibiyo gabdhihii waa ay dhaafeen oo dhahay markaan isbaranuu dhahay mid ka mid aan lambarka ka qaatuu dhahay waxay lambarka ii soo baastuu dhahay labada gabdhood mid qurxoonayd labada gabdhoodna way isla dhasheen oo walaalay ahaayeen marka wuxuu dhahay markay saa ii dhaafeen ayaa wuxuu dhahay gabadhii qurxoonayd mahana tii kale ayaan ka jeesan waayo dhahay indhihii waa ka qaadi waayey jacaylka aragtida ugu horeysa la dhahaa samaan arrimaha jacaylka iskama fiicnin waa soo tabiyaa kaliya maahay marka wuxuu dhahay adiga lambarkii lay siiyay baan isla daqiiqadii habeenkiiba ku dhuftuu dhahay oo aan wacay markaasaan wuxuu dhahay baayo hiblaaye soo ma tiitaa abaayo barasho wanaagsan wiilkii maanta waa gabadha waxay leedahay walaalo macaana soo dhowo barasho wanaagsan waxaan dhuu yiri abaayo gabadhii kale ma kula joogtaa haa walaashay waay okay oo gurigaas kula nooshiin haa waxay tiri waaba walaashayda iga weyn okay wuxuu yiri lambarkeeda ma isiin kartaa markaasay waxay dhahday way ila joogtaa ila hadal wuxuu dhahay way igu dhiibtay gabadhii isla hadalnay automatically isla markiiba wuxuu dhahay nin wixiisa sheegtaan ahay waxaan dhahay aadan kaaga helay haddii marka adiga walaasha isla socoteen maanta indhahayga kaama qaadin marka walaalay inaan isbarano wada soconna ayaan rabaa aniguna waxaan ahay nin mustaqbal rabo oo nolol rabo aadaana kaaga helay dee qof waxaan ahay waalidkiisana mar walba ay yidhaahdaan guurso marka anigana dee waxaan isleeyahay gabadhii nolosha waad heshay wuxuu yiri markii gabadhii aan isbarnay kadib waxaa bilaabatay yiri sheekada caadiga ahayd inaan gurigooda ugu tago guriga markaan ugu tago dhahay waxa baabka iga furi jirto dhahay gabadha yar anigana waxaan la socdaa gabadha weyn la gabadha yar aad bay u qurux badan tuu dhahay laakiin aniga midda oo waxaan ku haystaa dhahay weyn oo aan jacayl u qaaday guriga markaan tagu dhahay cunta la sameeyaa cabitaana la sameeyaa hada gabadhana waa taqaanaan markii qof la soorayo aad loo kala kiciyaa marka wuxuu dhahay sheekadu sidaa u ahayd oo waxaan ku dhahay guriga aan ku booqan jiray mar aan magaaladooda aad jirnay wuxuu dhahay baydawey markaan magaalada aadayno gabadha kaligeed moodi jirin walaasheed ka yarna way kaxin jirtay badanaa dad israaci ahaayeen oo dhahay magaalada waan isla kaxin jiray dhahay maanta markaan dhaho beritool magaaladan ku qoranahay midda kale diyaar waa dhawaab labisan tahay waa israaceena adiga sidaa u ahaynu dhahay howlaha sidaa isaga socdeen gabadhii aniga jacaylkii ahaa ayaa ina dhex maray
oo dad waxaan noqon aad iyo aad isku jeclaada oo jacayl weyn u dhex maray xaaladdu sidaa u ahaato waqti kale u dhiibuu dhahay gabdhaha leyn baa u xariisnaayo dhahay oo Kampala deganaayeen midii gabadhii ani aan la socday ayaa wuxuu dhahay leynkeedii soo baxay oo wuxuu dhahay sheekadu way kaga soo kala tagay wuxuu dhahay intaan wada soconay ayaa mar walba aniga nin weyn baan ahay waxaan dareemi jiray dhahay inaan jeceshahay gabadha yarta ah oo ay rabto indhaha igu hayso guriga marka imaado cuntii wax la diyaari waxay rabtaa waqtiga ugu badan binayadii la qaadato ila sheekaysato ila qoqosasho maxay tomato iyada wax ka keento gabadha kale waxa u maleysaa inay dhinac u riixayso anigana wuxuu dhahay mid dhan oo aniga nafteyda oo aan u imaado dhahay inta arkay waa yarta u dhahay iyo inta ila sheekaysanayso mar maamada u wacayso mar ilmahiya u wacaayo laakiin wuxuu dhahay maanta waxaan bayga dhaqaaqeeno dhahay gabadhii kale yartahay marka waxaan sidoo war hebelowniyo gabadhan dumaashida ah way ku jeceshahay markaas ani waa ignore gareyn jiru dhahay because walaasheedan jecluhu dhahay waana wax impossible oo aan macquul ahayn u dhahay telefonka wuxuu dhahay mar walaasheedan ka soo waca dafaysiinay dhahay iyada ilaa seetaan fiicanta xaaladda ka waran caafimaadkaaga jawiga hay intee joogta noo imaanaysa ayadaaba ka soo horeyso dhaatii kale tee jacaylka uu igala dhixeeyay gabadha kalena gabar iska maskiin ah heedu dhahay de ma jirtana gabar is dhahayso walaashaya ninka isla socoteen damcayso ma jirtaba kadib wuxuu dhahay aniga waan dareensanaa inay gabadha ay rabto laakiin mar walba waa iska ignore garan jiray hadana waxaan isdhihi jiray dhahay de waa iska gabar yare waxa laga yaabaa inay si walaaltinimo aan ku jeceshaaniyo de wax kale niyad iska gelin ay sidaan gabadhu wada socon u dhahay oo xaalkeena sidaa u ahay oo dhagdhag aan u ahayn oo jawigeena u kala toosnaayo xaaladaha u kala deganaayeen ayaa gabadhii aniga aan wada soconay leenkeedii soo baxay u dhahay wadan kamid ah Yurub ay hesho dhahay qoyskii kale uma aysan soo bixin kadib wuxuu dhahay anigana horta wuxuu yiri pressure yaraan qabo marka guriga joogu dhahay oo gabadha waxay aan sheekaysanayno hooyada u wacayso dhahay blaayo kaalay soo kaalay ilmaha saan qabo inta yeel ilaa wuxuu dhahay inta yaro aan sheekaysanayna hadii ay aragto dhahay gabadha yareedna ani iyo abaayadeed isku sheeka bogno aan xoogaa sheekadayna isku dhacday hooyo u tagaysaa waxay leedahay waa camalno kiya joog gurigana kama dhaqaaqay maanta lagu taagan yahay marka isla markii wuxuu dhahay waliga wataa dhahay daqiiqadii maamada wacdo dhahay adigu wuxuu dhahay sheekada sidii saa u ahayd anigana nin wax jecel aan ahay iska dul qaadan jiray ayadana waxay jirto dhawarniyo de hooyada iska taqaanaaye hawlahan telefoonka inta ku hadalna ka badneedo guriga marka tagan iska mujtamacu aha wuxuu dhahay markii uu soo baxay waxaan dhahu yiri abaayo adigii leen baa ku soo baxay anigana nololaan ka rabaa oo waxaan rabaa inaan nolol wadaagno oo aan noqono laba qof oo nolosha wadaag marka xalkeen waxay dhahdo yiri aboo leen baa ii soo baxay hooyana hadda kuma caasin karay iyo familkii leenkan howlihiisa ii waday laakiin bal waxaan ka qaaday xagga markaan tago oo aan passport-ka yar soo qaato inaan soo noqonayo adiga axdigeena sida aan u soo maalinta ugu horeysa aan u bilaawno ilaalintiisa inaan u ilaalinayo nin kale adiga aan ahay nolosha la wadaagin ani qalbiga iyo qabobayo dhahay waan la garab galay oo dhahay waxeedii la toosiyo dhahay gabadhi waa baxday markay baxdo dhahay qof safar oo iska taqaana inta ugu horeysa 3 bari oo ugu horeysa ila isma maqlaayo dhahay 4 maalin ugu horeyso kadib baa waxa dhacdo dhahay ani lambarkeedii ma haayo dhahay Facebook aan ka hayo dhahay Facebook kuma jirto gabadhi maaba ku jirto qoraalan qoraa man naba tagtay caafimaadka ka waran jawiga ka sheekay magaaladeed degtay wax ii jawaabay ma lahan dhahay telefoon kama hayo dhahay wadankay tagtay iyadoo ba telefoonkeygii Kampala haysata mana isoo wacayso 4 bil markaan waayo dhahay waa isceli way naf wax jecel ahay guriga gabadhi ay imaado dhahay gurigoodii ay imaado dhahay tiyareed baan arkin markaasaan waxaan loo yiri hay'adde maxay tooy abaay ma naba tagtaa way naba tagtay waxaan ku iri London ay joogtaa ilaa soo hadalnay talowsay waxay u jiraan walaa qoftaas niyo inay ka hadanaysatay oo egta oo aysan iyadu ku rabin aniga wuxuu dhahay beerka la dhaaf wadna oo saysan iirin dad balan dhigtaan banahay walaa ma og ma sheegi kari walaalo ku dhahay lambarkeedii si lambar ma aysan qaadan lambarka eeda iyo ayay naga soo xiriirisaa ani waxaan is dhowdaa waxa jira maxay yihiin waxa way jiraan waxa jira maxaa waay adiga wuxuu dhahay sidan saa isugu weysnayn Facebook-ana kuma arko ayaa maalinka bacdi waxaan wada dhexdeeda ku arku dhahay anuu aad u niyad jabsan gabadha yareed kaas waxaan dhowrahay iyo warsay ku dhacday ilaa hadda walaasha xiriirka ma haaye waana ogeed sidan ani ayadu isku jeclayna waxay igu jawaabto dhahay marka ani is arkayna wuxuu dhahay adiga dhowr isbuuc ka soo wareegto dhahay bixitaankeedii waxay dhahday warniyo waxaan ku sheegaa gabadha arooskeeda waa maalin heblaayo wallahi wuxuu dhahay wadadan ku dhici gaaray dhahay naxdin darteeda oo arooska sheegaysid muxuu yahay
hadda waxay meesha u tagto muhiimadeedu waxay ahayd inay nin is aroosaan dee qofka leenka u fududeeya nin baa qayb ka ahaa marka ninkaasay guursa rabtaa ay la soco walaa wuxuu dhahay naxdin meel yaroo cabitaanan ku leexdo dhahay biyo qabow waa meesha ka shubtoo dhahay ka cabi wuxuu dhahay wax aan sameeyan garawaayo dhahay facebookiga ma igala hadlayso taleefanka ma haaye adi sheekadii aan idinku sii dheereen asxaabay wuxuu dhahay sidii anigu xaalku yahay oo mee gabadhii wax ku dhacay xaalkeeda aan la ahayuu dhahay ayaa markay 2 bil ka soo wareegatay ayaan haddana gabadhii waxaan isku aragnuu dhahay meel markaasaan waxaan dhuu yirahay anigu weli nin wax jecel ahay abaaye ka waran xaaladeeda weli dee ani warka ma haaye waa la guursaday idhaahdo dhahay gabadhaas waa la guursaday markaa dee la soco ya u dhaani waxaan is dhuu dhahay gabdhaha badi aaminaad ma lahan inta ballan wada gasheen oo naftaadii iyo niyadaadii wixii dhan siisay ayay ninka la aroostay xanaaq u dhaani waa iska baxay kadib way soo wacdu dhahay hebelow hadda qoftaas waa la aroosee ka waran haddii aniga adiga aan isku qabsano maxaa la yiraahdaa aan xiriir sii wadano waa shakiyo dhan waxaan dhuu meeshan waxbaa ku jire niyo waxa ku jira maxay yihiin wixii ku jirana ma ogaan kariyo dhahay laakiin waan dareemuu dhahay in qoftan ay iyada wax sameynayso dhahay oo ay arinta wadato adiga sidaas siday u ahaadu dhahay anigii waan ka tagay Kampala dhahay Suudaana aaday Suudaana xoogaa ku maqnaa ganacsi waxaan ku aaday waa soo noqdo dhahay markaan soo noqdo dhahay oo waqtina ka soo wareegto dhahay wuxuu dhahay xiriirkeeduna yes ma dhihin mayana ma dhihin ma iska baxu dhahay oo leega iska aado dhahay wada dheer kadib gabadha niyadna way iga jirtaa laakiin facebookina waan ka waayay meelan kala xiriir ma lambarkeeda ma hayo walaashad lambarkeedu way ii diiday iyada bay dhahdo waan ku rabaa xaalka sida waa hawdha muddo kale aan u kala maqnayn u dhahay ayaa markay 2 sano ka soo wareegatay waa hada 2 years ay ka soo wareegatay ayaa anigu Kampala ku soo noqday dhahay family-kayga joogay Kampala markaan imaaday ayaa waxa dhacdo dhahay in aan Kampala ilaahay uu qadaru dhahay xaafad kamid ah xaafadaheeni inaan ku arko dhahay gabadhii 2 sano ka hor ay ugu dambeysay u dhahay oo dibadda aado ani isla soconay waa qaracmayo dhahay war heblaayo war maxaad saaniyo u gashay war bini aadan ma tihid qofkan xun ma arkin xiriirkeena maxaad u jirtay maxaad nin u aroostan ku bilaw dhahay gabadha horta meeshii oo hina fariisato dhahay markaas ay waxay yiraahduu yiri war ma adigaana naag aroosin markaan sas u baxayo aan horay u dhaqaaqay adigaan horay naag aroosin dhahday war naagta aroos maxay taani ilaa hadaba single ah wali wax ma aroosin waxay tiri saaxiib markaan aniga ingiriiska saa uga degtayba walaashay waxay ii sheegtay inaan naag aroostay wadnaha la yidhaa Facebook iyo wixii dhan daraada aan dhaafay dhahday inaan naag aroostay heblaaye hebel marka waxa jirta gabar ay marmar uga shakin jirtay gabdhoona waa iska masir badan yihiin heblaaye hebel ma adigaana aroosinay dhahday war aniga ma aroosin waxa ku sheegay aniga qof walba haduu wax ii sheegi lahayd tiri waan shaki lahaa laakiin walaashaydi ila dhalato iga yareyd ayaa ii sheegtay inaad aroostay oo aad fariintana xaggeeda ii soo marsiiso aad dhahday aniga waan aroosay heblaayaan aroosay maadaama ay tahay naag baxdo wadanka aaday aan kala danaysan anigan waxay tiri hadda markii aan muddo 5 bilood xanuunkaaga la jiifay nin reeraheena iska aroosay haddana hal cunugaan haystaa wuxuu dhahay meeshii baan isku ooyne naxdin ndooyir walaalay saama ahayn adi markaan arintii wada ogaanay waxaan ogaadu dhahay in walaasheed ayna kala geysay ayaday wacday ku dhahday hebel naag waa aroosay anigii ila soo is aragnay igu dhahday heblaay waa la aroosi rabaa kadibna ay dhahday waa la aroosay wayna ka danaysatay jacaylkeeni xididihiisu ay adkaayeen waxaa markaa xididada u siibay uu dhahay gabadhii yareed oo iyada laftarkeedii jecleed walaasheedii anigana markii meesha aan wixii iskugu sheegnay aan ogaanu dhahay marka ugu dambeyn wiilkan talada soo weydiistay wuxuu dhahay gabadhii aniga waa jeclahay buu dhahay ninkii ay is guursadeen wuxuu yiri xilligan la maraayo way kala tageen uu dhahay iyadana ingiriiska degan tahay aniguna reer Suudaan ayuu dhahay waana gabadhii walaasheed ayna kala dhex gasho dhahay walaashina kala dhex gashan ilaa wali way jecesho way rabtaa makatana sulaayo labada walaalu dhahay ma intaan iskaga kala baxo adduunyadeyda ma maraa mase jacaylkeygii baan dib u raadsadaayo gabadha hadda cunug dhasho ninkeedina ay kala tageen ayaan is guursanaa ila soo taliya mase maadaama labada gabdhoodba ay jecel yihiin farahan ka qaadaayo dhahay oo tii hore iyo tii kaleetaba kodigooda waa isla tuuraa oo qore iyo qiiciisa waa isla tuuraa farahan ka qaadaa marka wuxuu dhahay bal ila soo taliya taladiina ayaan rabaa inaan ogaado
waxaan ahay nin jacayl uu hayo laakiin jacaylkiisii ay kala dhantaashay gabadhan jeclaa walaasheeda. marka sheekadu waa intaasa, waana wax aada looga yaabo. bal maxaa ku dhexgeliyay laba qof oo isjecel maadaama walaashaada weyneed iyo ninka dumaashiga uu yahay? waxaase wax aada looga xishoodo, waana wax aada u xun, ma fahamteen? marka anigu waxaan ahay soo gudbiyaha tala wadaag, idinkuna waxaad tihiin dadka aragtida kasoo dhiiba. waxaa laga yaabaa qisadan oo kale in dad kale ay haysato oo commentiyadiinu ay anfici doonaan. marka aragtidiina waa inoo muhiim. aad baad u mahadsantihiin. habeen wacan.